kulanti waxaan wanaagsan khiyaarta sharafta badan ee hawada naga daawatay meel kasta aad ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxbarashada oo ah barnaamij toddobaadle ah alaabana toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan shaashada TV-ga Somalisat. barnaamijkeena toddobaadkan daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa mid kamid ah malcamadaha Qur'aanka ee ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyo diinta Islaamka iyo waxyaabaha ay ku fadishay barashada cilmiga diiniga iyo maadiga intaba. sida aad wada ogsoontihiin daawadayaalba Qur'aanka oo ah dastuurka kaliya ee Ilaahay u dejiyay adduunyadan ayaa waxaa ku soo aroora aayado fara badan oo kaga hadlaya barashada cilmiga iyo dadka cilmiga leh labadaba iyadoo Ilaahay leeyahay Qur'aankiisa ku leeyahay hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun miisma yihiin kuwiina wax garanaya iyo kuwa aan wax garanayn sidoo kale isagoo Qur'aanka ay ku soo aroortay fas'alu ahla dhikri wa in kuntum la ta'lamun weydiiya dadka ahlu cilmiga hadaa tihiin kuwa aan waxba garanayn. haddaba daawadayaal barnaamijka toddobaadkan waxa inoogu marti ah macallin Cabdirasaaq Cismaan oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga malcamadan weyn ee Salama ee magaalada Nairobi. macallinku sida aan filayo waxa uu ka dhigaa malcamado kale iyo madaaris kale oo diiniya oo ku yaala magaalada Nairobi. barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa xoojinta iyo quweynta barashada diinta Islaamka gaar ahaan Qur'aanka anagoo si gaar ah uga wareysan doona macallinka fadaaisha barashada cilmiga diiniga ah iyo maadiga intaba. macallin marka hore ku soo dhawow shaashada TV-ga Somalisat. waa tahay macallin waxaan doonayay bal ugu horeyn inaan faahfaahin ka bixino ama daawadayaasha aynu u sharaxno malcamadan Salama goorta la furay ee waxyaabaha lagu barto ardayda dhigata waqtiyada la soo galo intaba inaynu bal ka dhigino marka hore. aad baa u mahadsantihiin Somalisat oo soo booqday maanta aad baa ugu mahadcelinayna jazakumullahu khayran. intaas kadib jawaabta hadaan u guda galo madrasada waxay furan tahay dhowr iyo 10 sano ah ay furan tahay waxbarashada heerka uu Islaamku gaarsiiyay waan fahamsanahay oo maaragtay Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aanka aayado badan buu inoo amraya in cilmiga la barto. ayadahaas waxaa kamid ah aayado Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah ilaahi baro. nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam la hadlaya waxa la leeyahay fa'lam baro la ilaha illa Allah ilaah mooyaane alla kale nuusan jirin xaq lagu caabudaa baro. maadaama aayada Qur'aanka Ilaahay uu ku amray rasuulka qof kasta oo muslima waajib ay ku tahay inuu maaragtay diinta barto. rasuulkuna axaadiista ayuu ku cadeeyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri cilmiga barashadiisu waa waajib maaragtay qof walba waajib ku yahay. sidoo kale hadaynu Qur'aanka fiirino suuradii ugu horeysay oo soo degta suuratu Iqra shanta aayadood ee u horeysa rasuulka sallallahu alayhi wasallam malku Jibriil markuu u yimid isagoo qaarul Hira godka ku jira uu ceejiyay cunaha ayuu qabtay kadibna aayadaas ay ku akhriyay Iqra bismi rabbika alladhi khalaq akhri balid akhrinta marka amar bay ku tusinaysaa. culimadu marka waxay dhahan ummatu Iqra la taqra ummadii suuratu Iqra lagu soo dejiyay oo waajibka uu ku ahaa saadarteed cilmiga ahmiyad weyn bay diinteenu siisay. cilmigana waxa kamid ah qiraa'ada inuu qofku wax akhriyo inuu wax qoro inuu maaragtay diintii u fahmo inuu maaragtay cilmi la'aan qofkii Ilaahay maaragtay cibaadaystana dhibaato ayaa kala kulmaysa oo cilmi la'aan qofkii Ilaahay caabuda wuxuu shabahayaa nasaarada iyo kristaanka oo waxa la yiraahdaa daalliin way kuwaas waa baadiysan yihiin. qolada kale oo ka soo horjeeda way qolada cilmigii barteen aan ku amal falin oo qolada lafteeda Qur'aanku uu ceebeeyay. Qur'aanka yaani diinta misayna faris waxa weeye in la isku daro cilmigii iyo ku amal falkii labadaba. marka fadli aad iyo aad u qiimo badan baa Ilaahay maaragtay uu u tilmaamay ama u ballan qaaday qiimo weyn dadka cilmiga leh maaragtay waliba cilmiga sharciga oo naafica barta. waa tahay Cabdirasaaq hadaynu soo noqono malcamadan Salama goorma ayaa la furay ardaynta leeg baa dhigata maadooyinka ama manhajta ay bixisana maxaa kamid ah iyo waxyaabaha dadka bartaan. bismillaahir rahmaanir rahiim madrasada waxa la furay 2000 ayaa la furay. ardaydu waxay isugu jirtaa laba qaybood oo ah qayb waaweyn iyo qayb yaryar. qaybta waaweyn waa dumarka qaybta yaryarna waa ciyaalka oo wiilal iyo gabdho isugu jira. maadooyinka lagu baro ama kitaabada lagu baro waxa kamid ah kitaabada sa arkaysa Qur'aanka Kariimka aba ugu horeeya oo xifdinta Qur'aanka Kariimka isagana shay walba asaas in laga bilaabo
higaada ayaa la baraa sidoo kale dadka afarta aqoon tajwiidka kitaabka juruumiga oo naxwaha oo garaamarka ah riyaadu saalixiinka oo axaadiistii rasuulka sal allahu alay wasalam fiqiga oo kitaabka abushijaaca oo kale safiinaha oo kale siiradii rasuulka iyo saxaabada oo suwar min xayaat saxaaba iyo maaragtay khulaasatu nuurulyaqiin kutubtaas ayaa maaragtay ka baxa madarista sidoo kale tafsiirka qur-aankaana waa loo akhriya qur-aanka macnihiisa iyo tafsiirkiisa iyo lafdigiisa isagana meesha uu ku jiraa macalin bal waxaad ka sheekaysay faa'iidooyin fara badan inuu cilmigu leeyahay in yar adoo soo koobaya waxaad ku kulmisaa hal meel faa'iidooyinka barashada cilmiga diinta uu leeyahay ifka iyo aakhiro labadaba cilmiga faa'iidada ugu weyn oo uu leeyahay waxa weeyaan qofku inuu aakhiro iyo adduunba u badbaado aakhirana uu janno ku noolaado alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur yani qofkii laga badbaadiyo naar jannana la geliyo waa liibaani qofkaas saa darteed taasna ma suuragelayso inuu qofka cilmi yeesho marka cilmiga faa'iidada ugu weyn adduunka wuxuu ku noolaanayaa maaragtay nolol wanaagsan qalbi xasilan alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub dikriga ilaahay baa qalbiga ku xasilaa nolol wanaagsan falanuxyiyanahu xayaatan tayiba nolol wanaagsan baan ku noolaynaa alle subxaana wa tacaala adduunka intuu ku noolyahay aakhirana janno iyo wanaag baa ilaahay u ballan qaaday dadka kale oo aan iyagu cilmiga sharcigaa baran ama aan islaamka ahayn waxaa arkaysaa dad badan oo laleeyahay way isceejiyeen sun bay cabeen dabaq bay iska tuureen waxa u keenaysa jahliga maaragtay ay jaahilnimada ay ku sugan yihiin cilmiga markaa qiimaha uu leeyahay wax la koobi karo maaha aakhiro iyo adduunba maaragtay waa wuxuu qofka ku badbaadi lahaa oo maaragtay maslaxadiisa iyo khayrkiisa ugu jirta jaahilkaana waxaa ceebtiisa ku tusayaba ninka jaahilka haddii la yidhaahdo jaahiliyo uu ka xanaaqaya isagoo jaahila cilmigana fadli waxaa ugu filan cidaan cilmiba lahayn baa sheeganaysa oo maaragtay leh cilmi baan leeyahay kanaan ahay marka cilmiga qiimaha uu leeyahay sidoo kale nin shaacira oo gabyaaga markuu cilmiga ka hadlayay wuxuu yidhi khafiif alxamli xaythu yuujadu xaythu kunta meel kasta uu kula tegaya cilmi yani xambaaridiisu waa fududa wixii aad xafidsan tahay oo qalbiga ku hayso oo aad buu u fududyahay yani tuug baa iga dhacay iyo kan iyo midna ma laha adduunka meeshaa tagtuu kula maraya uu ku anfacaya sidoo kale alle wuxuu ku tilmaamay inuu yahay cilmigu sharciga uu nuur yahay oo min adulumaati ila nuur dadka uu mugdiga ka saarayo nuurka iyo iftiinkana uu saarayo marka waxaynu koobi karno maaha axaadiis fara badanna rasuulku uu ku tilmaamay sal allahu alay wasalam wuxuu yihi man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna qofkii maaragtay waddo mara waddada isagoo ku dalbaya inuu cilmi barto oo cilmi sharciga barto ilaahay baa wuxuu u sahlayaa dariiqa jannada marka jannana wax ka qaalisan ma jiraan cilmiga markaa fadligiisu aad iyo aad buu u qiimo badan yahay axaadiista iyo aayadaha qur-aanka intaba lama soo koobi karo aad baad mahadsan tahay macalin bal waxaad taagtaa amaba aad ka warsantaa maadaama aad tahay macalin haddeer ilaa in ka badan 10 sannadood kasoo dhigayay cilmiga diinta malcaamadan iyo madaaris kale oo kala duwan dadka soomaalida ah ee qaxoontida kuwa Kenya iyo qaabka ay u bartaan diinta bismillaahir rahmaanir rahiim barashada horta way ku kala duwan yihiin dadka waxa arkaysaa qof Soomaaliya markuu joogay oo aanu soo qaxin wax baran jiray oo aad u fiicnaa oo tarbiyada iyo akhlaaqda iyo cilmiga ku dadaali jiray laakiin markuu Nairobi ama Kenya isbedelay oo cilmiga ka tagay maaragtay akhlaaqda wanaagsan ka tagay kaasi way jiraan waxa kaloo jira dad markii hore xagga aan ku dadaali jirin oo maaragtay Soomaaliya aad maaragtay ugu hooseeyay halkan markay yimaadeen maaragtay akhlaaqdooda iyo cilmigooda iyo adaabtooda intaba aad maaragtay la yaabaysa waxa kaloo jirta Soomaali badan ama dadka inta badan qaarkood looma keenin waxbarasho meesha marka tiraado wax baratid ama kale cilmiga hala barto waa kan qofkii wuxuu leeyahay buufis baa yahay maaragtay meel baan u socdaa anigu waxbarasho meeshan uma imaanin haddana waxa kaloo arkaysaa dad dadaalaya oo maaragtay iyagoo dan kastaba u yimaadeen dantoodii wata waxbarashadii maaragtay ku dadaalaya oo niyad u haya dadka marka aad bay u kala duwan yihiin oo maaragtay farqi weyn baa u dhaxay rag iyo dumar sidoo kale waxaan la iska indha tiri karin inay inta aan wax baran ay mar walba badan tahay yani dadka mar walba inta wax barataa yar oo waliba dadaalaysa
way iska jiraan dad badan oo maaragtay yidhaahda waxbaanu baranaa aan waxna baran intaa been iyo maaragtay war iyo fadhi ku dir iyo howlahaas ku jira marka aad bay u kala duwan yihiin dadka oo maaragtay waxbarashada. macalin sida aynu ogsoonahay dadka Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah Kenya aad bay u fara badan yihiin waxaana laga yaabaa in qaar badan ay duruufo dhaqaale aawadood iska hortaagto inay wax bartaan qaab nooceeya ayaad ku bartaan Umu Salama dadka madrasada waxaa loo aasaasay waxa weeyaan madrasa waqaf ah oo maaragtay fi sabilillah marka dadka maanta waxbarashada waxay ku jirtaa waxyaabaha ugu sahlan oo maaragtay qof waliba uu baran karo duruuf kasta oo jirta waxaa ka adag maanta inuu qofku wax barto waxaa ka adag kiradii ama cuntadii taasaa laga yaabaa inay dhib ku keento mooyaan laakiin waxbarashadii masaajidda haddaa eegto madaarista haddaa eegto madrasadan waxaan ku aasaasnay madrasad waqafa ninka meesha sheekha meesha iska leh ilaahay ajri xasanaha ka siiyo isaguna kira kama dhigin waqaf aan buu ka dhigay annaguna maaragtay xoogayga cilmigayga waqaf baan uga dhignay wixii marka macallimiinta la soo darsaa oo maaragtay hawlo jirana macallimiinta iyo ardaydu baa maaragtay dib isugu noqdo wuxuu isla qayb qaata mooyaane wax maaragtay fiya iyo wax mid lagu xidhaya midna ma jiro haddana inta badan waxaan ku dadaalnaa dadkii saan uga dhaadhicin lahayn maaragtay hadii wax kaama rabto maaragtay casharkaagiimo ku dadaal marka xagga duruufta haddii la odhan lahaa duruuf baa jirta yacni intaasoo darsi oo wada bilaasha oo lacag la-aana baa jirta waxaa jirta dadaal xumo dadkay baan dadaalayn marka dadaal xumadaasa waxay keenaysaa dadka qaar inay ku marmarsiyoodaan qarash ma helayo kan ma helayo qofkii diyaar xitaa meelaha qofkii xitaa maadi raba maadi bilaasha wuu heli karaa maaragtay wuu heli karaa diinigii oo bilaash kutubtii iyo cajaladii iyo cilmigii maanta aad buu ugu sahlan yahay dadkii waxaa haysta waa naf iyo shaydaan iyo maaragtay dad hawadooda raacayna way iska jiraan oo maaragtay caajis oo ka tambata macalin dad fara badan ayaa aaminsan haddii ay waaweynaadaan inaysan waxba baran karin qaab nooceeya ayaad macalin dad fara badan ayaa aaminsan haddii ay waaweynaadaan inaan waxba la baran karin ama haddii la weynaadaba dadka aad wax bartaan idinku noocee u badan yihiin horta dadkaas fikirka aaminsan oo le dad waaweyn inaana wax baran karin fikirkaas waa fikir khaldan taana waxaa ku tusaysaa saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam kuwa badan iyagoo da-a oo odayaal ay soo islaameen isla markaana cilmigii sharciga isku sibay u baranayeen kooda yar iyo kooda weyn labadaba cilmigii sharciga ahaa iyo waxyigii iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnadii labadiba way barteen ta kale hadda waxaa la ogaaday oo tajribo lagu ogaaday qofku hadduu weyn yahay iyo hadduu yar yahay in uu labadaba wax baran karo oo waxaa la sheegay jaamacatul azhar sheekh wax ka dhigi jiray oo markii dambe macallin ka noqday isagoo 50 jir inuu bilaabay waxbarashada markii dambe ilaa 90 meelaha inuu ku dhintay 50 jir uu ku bilaabay marka dadka waaweyn way bartaan maamooyinka qaarkood oo maaragtay caruurihii ay dhaleen ay wax sii dhaleen oo ilaa 90 jir 100 jir 80 jir baa arkaysaa ku dadaalay oo quraanka baranaya qaarkood jus ama qaarkood jus tabaarig qaarba heer ay marayaan qaar farti baranaya marka fikirkaas waa maaragtay waa fikir aan fiicnayn oo qofa inuu iska tirtiro cilmiga mar walba waa la baran karaa culimadu waxay leeyihiin cilmiga waxa rabaa in la barto ilaa qofka dhalashadiisa markuu ka bilaabato ilaa intuu ka dhimanayo qof walibana waa inuu daalib cilmi ahaado wey sheekh kastuu yahay cilmiga maaragtay laguma dhargo ninba qayb baana ilaahay ka siiyey dadka ay ku adkaato barashada xifdinta qur-aanka amaba barashada higaada oo kale qaab nooceeya ayaad loo dhaqantaan idinku awalan horta mar koobaad adayga sababaa keena sababahaas waxaa ka mid ah qofkii oo matalan hawl badan iyo mashquul fara badan oo ku furan yahay waxaa keeni karta qofkii matalan xoogaa inuu fahmadiisa ay cuslaatay oo maaragtay oo da-diisa xoogaa hadduu qofku isku si uma fahmaan dadka qofka xoogaa hadduu da weyn yahay oo caruuro badan kuwa waayay yahay kuwa kale xoogaa fahamkiisa waa cuslaanaya laakiin aakhirka markuu ku celceliyo wuu sahlanaanaya marka fahamka dadka wuu kala duwan yahay awalan waxaan baadhnaa sababta qofka markuu yidhaahdo casharkii baa igu adkaada ama qur-aankii maxaad qabataa maaragtay qofka caafimaadkiisa in la ogaado matalan waxyaabaha dadka ay ku mashquulaan t v iyo laacad iyo waxaas hadday taallo ciyaalka ay guryaha waxaa u yaaleen in maaragtay waalidkii lala hadlo oo la yidhaahdo ha laga ilaaliyo maaragtay ilmaha t v-ga iyo ku mashquulin guriga markay joogaan wax ku akhristo waalidka iyo macallinku maaragtay ha iska warhayaan qof weyn sidoo kale hadduu yahay
isagana marka la wareysto oo wixii uu sheego dhibka ka cabanayay uu ku adkaa talooyin baanu siinaa isagana si inuu waxa kamid ah talooyinkaas qofku inuu istighfaar la yimaado oo maaragtay ilaahay dambi dhaaf weydiisto oo imaam shaafici baa beri waxaa ku adkaaday xifdiga xoogaa ku xumaaday yara adkaaday kadib sheekh kale oo wakiic la dhaho ayuu sheegay markaasuu wuxuu yidhi shakawtu ilaa wakiicin su'a xifdi fa arshadanii ilaa tarki almacaasi sheekh wakiic baan u tegay buu yidhi waxaan uga cawday xifdigayga inuu xumaaday markaa sheekhi wuxuu igu hanuuniyey oo igula taliyay buu inaan macaasida iyo dembiga ka tago saa darteed waxyaabaha xifdiga xumeeya waxaa ka mid ah dembiga faraha badan ishaada dembiga ay ku dhacayso dhegtaada dembiga aad maqlaysa carabkaaga dembiga aad ka sheegaysa xifdigaagiiba wax u dhamaysaa waxyaabaha sababi kara inuu qalbigu ku madoobaado oo marka dambe qalbigaaga la daboolana waa ka mid marka talooyinna waa siinaa qofkiina waa u tartiibinaa oo maaragtay casharkii in loo yareeyo mar aayad mar labo maaragtay tartiib soomaalidu waa ku yidhaahdaa cad iyo cashar labadaba waa la yareereystaa hal mar haddii qofka hadda soo gala la yidhaahdo albaqraa lagaga bilaabaya waa ku adkaanaysa marka hadba qof walba heerkiisa aanu tartiibinaa talooyinna insha allah waa siinaa macalin sida aynu ogsoonahay madaarista amaba dugsiyada maadiga ahi waxay leeyihiin hal manhaj amaba meel laga kantaroolo waxay dhigayaan amaba laga xukumo waa maxay faraqa u dhexeeya madaarista diiniga ah qaab nooceeya ayayse wax u baraan dadka macadada hadday tahay amaba madrasadaha hadday tahay diiniga ahi qaab nooceeya ayay dadka wax u baraan madrasadahaas aada bay u kala duwan yihiin farqi weyn oo u dhexeeya koobaad madrasada iskoolka oo maadiga ah way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin booska iyo meeshii la fadhiisanaya inta badan maadiga marka la baranayo kuraasi qaaliya baa loo soo dhigayaa sabuurada macalimiin maaragtay mushaharkoodii bil walba bisha koodeeda qaadanaya ilmihii haddii waalidkii la dhaho 4 kun baa laga rabaa bishii diyaar buu leeyahay maaragtay aad bay dadka u daneeyaan oo qaarkood waxay haystaan qofka hadduuna maadi baran inuu irsaaqad kale beheleen marka saa darteed horta xagga waalidka iyo xagga ilmaha labadaba daneynta ay waxbarashada daneynayaan xagga iskuulka bay u hagar baxsan yihiin tan haddaan usoo laabano dugsiyada waagii hore sida dugsiyada soomaaliya lagu baran jiray loox baa loogu dhigi jiray dadka iyo khadka iyo dugsiga wuxuu iska ahaan jiray meel maaragtay ciyaalka oo dhan ay iska wada fadhiyaan kuraas aan lahayn meelaha qaarkood nal hadduu doono oo iska lahayn qaabkii marka qur-aankii oo qiimo badan qaabkii loo baranayay baa dadka waxay dileen qur-aanka suuradiisii bay xumeeyeen sababtoo ah meel maaragtay munaasab aan u ahayn oo xoogaa liidito dayac ka muuqan ayaa dadkii loogu dhigaya ta kale haddana waalidkiina wixii uu ku bixinayay dugsiga isagoo maaragtay liidaya macalinkii oo macalinkii qaarkood aan xushmad badan u ahayn wax yar oo aan qiimo badnayn baa laga yaabaa inay kusoo taagaan oo yidhahdaan macallin oo dee 500 kii iskuulkana 4 kun diyaar u tahay weliba iskuullada qaarkood boardinga ah qaarkood waxaa laga yaabaa 30 kun inay 4 bilood ama 3 bilood 30 kun ay maaragtay bixiyaan iyadoo farqigaasi jiro haddana macallimiinta dugsiyada dhigaasii kala duwan oo iyaga laftigooda farqi kale u dhexeeya qaarkood waxay wax ku barayaan nidaamkii iyaga lagu soo baray oo tuulada markay joogeen ay kusoo baranayeen oo laga yaabo ilmihii inuu garaaco oo maaragtay gacan ka jabiyo ama il ka soo rido ama ul uu maanta oo dhan qacda ku hayo ilmihii saa darteed waxay imaanaysaa ilmihii inuu dugsigii naco marka oo ushan iyo qayladan iskuulkii markuu aadayana qaylo iyo buuq male xoogaa maaragtay kubad baa mar la siinaya le soo ciyaar xoogaa nusi saaca marka macallimiinta qaarkooda waxay ku wadaan nidaamkii hore oo maaragtay usha ahaa iyo waxaas ah qaarkoodna way ka bedelan yihiin oo maaragtay hadda xoogaa sidii hore way ka fududeeyeen maadaama maaragtay hadda waqtigii isbedelay dhulkiina laga yimi oo dhul kale la joogo waxaa la ogaada qaarkood macallimiinta ay fahmeen inaan carruurta saa wax ku baran kareen ardaydii maaragtay in tartan loo qabto in maaragtay hadiyad la siiyo jaa-iso la siiyo qur-aankii maaragtay in la jeclaysiiyo dugsiga maaragtay nadaafadiisa in laga dadaalo laakiin weli waxaa yar ahmiyadda uu waalidku u hayo oo maaragtay weli sida waalidku wax ugu bixinayo iskoolada weli uguma bixiyaan madrasad marka taa waxaan leenahay waalidku inay maaragtay ay ka dadaalaan xagga dugsiyada macallimiintuna maaragtay ardayda ay ka dadaalaan oo maaragtay nadaafadooda iyo qaabkooda ushanina xal ma noqonayso mar walba ul maaragtay in lagu garaaco macallin muddo intee la-eg ayaa lagu xafidsiin karaa qofka fahamkiisu fiican yahay qur-aanka xifdintiisa hadday tahay magaranaysaa tafsiirkiisa iyo higaadiisa labadaba dadka labaa loo kala qaadaya waa qof qur-aanka hore usoo bartay oo maaragtay wuxuuna bilaaban yihiin iyo qof hadda loo bilaabayo
qofka haddii hore wax ugu bilaaban yihiin ama higaada uu fahamsan yahay qur-aanka maalintiiba haddii 5 aayadood la siiyo keliya 5 sano maaragta waa lagu xafidsin karaa ka ugu fahmada culus 5 sano uu ku xafidi karaa haddii uu ka fahmo fiican yahay oo maalintii 10 aayadood la xafidsiiyana 2 sano iyo badh bay noqonaysaa laakiin qofka bilowga ah oo maaragtay kaas u baahan casharkii lagu celceliyo u baahan kaas waxay dhici kartaa inay qaadato muddo intaa ka badan oo sababtoo ah gaadii farbar kaliya laga yaabo inuu 3 bilood 4 bilood ama 5 bilood ama 6 bilood qaato kadib haddana qur-aankii tartiib qaarkood waxaa dhici karta jus ama jus tabaarig inay 2 sano 3 sano ay ku jiraan marka qofka adigu ay wax u bilaaban yihiin ama fahmadiisu ay fiican tahay 5 sano maaragtay waa ka ugu fahmada yar inkastoo dadka qaar laga yaabo inay intaa ka yar ku fahmi karaanba ama ay ku xafidi karaanba laakiin sida qiyaasta 5 aayadood haddii la siiyo 5 sano ayuu ku xafidayaa qofkii kale oo ka fahmo fiican 10 aayadood qaata 2 sano iyo badh 20 aayadood hadduu maalintiiba xafidi karo mar kasta waa kasii yaraanaysaa xisaabta unbaa lagu wadaya xisaabta waa tahay macallin waxaad sheegtay in ay faraq badan u dhexeeyo malcaamadaha diiniga amaba macaadada diiniga ah ee ardayda bara diiniga qaab nooceeya ayaa loo kulmin karaa bay kula tahay in hal loo sameeyo meelo ay isugu yimaadaan amaba isku cashar laga dhigo ama hal wax inay dadka wada baraan oo kale horta barnaamijkaas uu adkaanaya mararka qaar mar halkan la isku dayaba way jirtaa in maaragtay la kulmiyo laakiin Soomaalida samirkeeda iska yar oo wixii fulinteediba adag way iska fudud in la isu yimaado la dhaho barnaamijka aan qabano laakiin haddii u baahan tahay in la hirgeliyo waqti badan iyo samir badan bay u baahanaysaa saa darteed in badan dadka samirkooda way iska yar waxaa laga yaabaa hawshii markay maalin ama bil wadaanba inay joojiyaan gebigeeda farax ka qaadaan marka waxa ugu muhiimsan horta macallimiinta in ay ka midoobaan ama madaarista maaragtay lagu midayn karo awalan horta caqiidada maaragtay in dadka laga bilaabo qof kasta oo arday maaragtay caqiidada saxda ah la baro oo iimaankiisa iyo maaragtay waxyaabaha caqiidada oo aaminsan yahay diinta islaamka si fiican looga dhaadhiciyo dadka mararka qaar ardayda waxaa arkaysaa arday weyn oo maaragtay 22 jir ah baa waxaa weydiinaysaa su-aal asaasi oo hoose lama soo dhigin buu ku leeyahay waxaa dhici karta ardaygaasi qur-aanku xafidsan yahay hadduu doono kala badh buu tafsiir buu dhigtay marka macallimiinta horta inay ka bilaabaan caqiidada maaragtay inay ardayda ka dhaadhiciyaan caqiidada haddii maaragtay macallimiintu ay ka midaysan yihiin qur-aankii iyo kutubta kale wax dhibaato ma leh oo macallin kastaaba yacni isagu qaab uu ugu akhrin karaa kitaabadiisa oo kitaabada caadiga ah oo axaadiista iyo laakiin dadka qaarkood caqiidadii maaragtay kama dhisayaan ilmihii waxyaabihii asaaska ahaa ma barayaan waa qur-aan baa la isaga bilaabayaa marka waxaa ugu muhiimsan horta haddii la helayo waxaa jamcin kara lahayd hay'ad un haddii la helo waa maaragtay manhaj midaysan iyo maaragtay taas barnaamijkaas waxay qaadanaysaa qarash badan iyo waqti badan barnaamij culus weeye laakiin intii karaankooda inay macallimiintu maaragtay iskaashadaan oo maaragtay ay kulama yeeshaan oo maaragtay seminaaro haddii loo qabto culimadu ay u qabato arrimahaas un bay ku midoobi karaan oo culimada waaweyn maaragtay ay horkacaan dadka laakiin dadka qaarkood haddii macallimiinta waxaa dhici karta qaarkood inaan is dhegeysan oo aan waxba iska maqlinba marka manhajka iyo midayntaas hawl badan iyo waqti badan bay u baahantahay ma fududa laakiin waxaa fudud bal macallin waliba inuu iskii horta karaankiisa u dadaalo oo maaragtay ardayda waxyaabaha asaasiga ah u ka dhiso macallin waxaad sheegtay inaad dad waaweyn oo fara badan aad wax u dhigtaan waxaa laga yaabaa inay ku adkaato fahamka dhigista amaba luuqadda carabigu ay aada ugu adkaato ma jirtaa qorshe kale oo Umu Salama ay ugu talagashay dadka waaweyn ee wax ka baranaya dadka waaweyn oo carabigu ku adag yahay waxyaabaha asaasiga ah waxaan ugu talagalnay buug yar oo maaragtay ay ku qoran waxyaaba muhiim ah aadaabta ay ka mid tahay akhlaaqda islaamka ay ka mid tahay tusaale ahaan yacni buugga hadda bejka ugu horeeya maaragtay wax ku qoran 10 arrimood oo ah akhlaaqda islaamka ardayda qaarkood haddaa weydiisoo tiraahdo waliba ardayda cusub ama qof markaa yimaad tiraa akhlaaqda islaamka ma taqaan maya baa laga yaabaa inuu dhaho qaarkoodna hadday dhahaan waa naqaanaa ay dhahaan akhlaaqdu waa akhlaaqda islaamka marka buuggaas 10 qodob oo horeeya waxa weeye akhlaaqda islaamka ay ku saabsan tahay sida runta iyo ammaanada iyo maaragtay xishoodka deeqsinimada ballan ilaalinta daris wanaaga arrimahaas wax kaloo ku jira aadaabta maaragtay aadaabta cuntada loo cuno aadaabta dadka loola dhaqmo aadaabta ardayga looga baahan yahay
aadaabta qofka waxa xaajo gudanayo arrimahaas waxa kaloo jira su-aalo iyo jawaabo oo ku qoran maaragtay salaadii la xiriira soonkii la xiriira waxyaabaha salaada buriye waxyaabaha muhiimka ah oo qofkii markaad carabiga aan fahmayn soomaaligiisa kusoo fahmaya kadib su-aalaha wixii laga weydiinaya waa lagu itixaamaya marka kii carabiga ku adag yahayna buuggaas baa loo dhiibaya kii carabiga yaqaana isagoo carabiga ku qoran baa la siinaya meesha ku adkaadana waa loo fasiraya marka qaabkaasaan ku wadnaa oo maaragtay muhiimadda horta aadaabta maaragtay in dadka laga dhiso dad badan hadda waxaa bartaan laakiin akhlaaq ma jirto aadaabi ma jirto tarbiyadi ma jirto taana waxaa keenaysa kulli dee burburka iyo dhibaatada iyo wixii lasoo maray oo maaragtay dadka tarbiyad wanaagsan haddaanay helin oo waalid si fiican u barbaariya qaarkood waxaa dhici karta hooyadooda iyo abahood waaba isfureen way kala qaxeen qaarkood abahood waa dhintay maaragtay tarbiyaddu waa muhiim marka ilmihii inuu gurigana tarbiyad ku helo macalinkiina uu tarbiyeeyo bulshadiina ay maaragtay bulsho tarbiyeysantahay laakiin haddii aan ilmihii waalidkii tarbiyeynayn macalinkii tarbiyeynayn wuxuu loo dhigo iska xariiqo waxaa arkaysaa khaladaad badan oo maaragtay ay hadda carruurta soomaalidu ay sameynayaan hadda waxaa arkaysaa dadkan sawaaxiliga ama dadkan dhulka degan inta badan maadigay barteen xoogaa markaad fiiriso dariskooda aamus badnaan iyo maaragtay buuq yaraan iyo qaylo badnaan qayladooda aada bay u yarta laakiin innaga soomaaliya haddaan nahay 10 qof ama 2 qof oo soomaaliya meesha isugu yimaadaan waxaa lagu yaqaanaa waa qaylo iyo maaragtay buuq iyo waxaas qaarkood way garanaya qayladu inaanay fiicnayn laakiin tarbiyaddii baa ka maqan marka tarbiyadda muhiima iyo aadaabta iyo maaragtay akhlaaqda xagga inay macallimiintu ay ka dadaalaan oo aanay qur-aanku keliya maaragtay aanay u dhigin oo maaragtay la baro ilmihii qur-aanka maaragtay ixtiraamkiisa waalidka ixtiraamkiisa dariska ixtiraamkiisa ardayda kale ixtiraamkooda qur-aanka inuu qiimeeyo taasaa muhiima iyadana maaragtay u baahan in aada dadkeena loogu practice gareeyo lagu celceliyo oo aan dad badanna fahamsanayn hataa waxaa arkaysaa dadka qaarkood oo dad waaweyn inay maaragtay tarbiya xuma hayso oo cid barbaarisana aanay helin cid tarbiyaysana maaragtay aanay helin marka dhankaa tarbiyada in aada maaragtay looga dadaalo aada bay muhiim u tahay waa tahay cabdirasaaq waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena waxbarashada oo toddobaadkan aynu muhiimadda ku saaraynay xoojinta barashada qur-aanka iyo diinta islaamka maxaad ugu baaqaysaa dadweynaha soomaaliyeed ee shaashada Somalisat ka daawanaya hadday ku sugan yihiin isli iyo caalamka guud ahaanba dadweynaha waxaan kula talinayaa waxbarashada maaragtay in lagu dadaalo waxbarashadana cilmiga naafica ah oo cilmiga sharciga ah ayaa ugu muhiimsan qof wali maaragtay inuu ku dadaalo cilmiga barashadiisa qur-aanka barashadiisa yacni cibaadadiisu waxay ku ansixi lahayd uu barto oo cilmiga qaybtiisa waajibka ah soonka iyo salaada iyo maaragtay axkaamtooda iyo waxyaabaha laga maarmaanka ah oo maaragtay diintiisa qofka inuu jaahil kaga noqon gaar ahaan weliba caqiidada iyo tawxiidka hadda laa ilaaha illa allah dad badan baa laga yaabaa inaanay macnaheeda garanayn oo shuruudeeda garanayn arkaanteeda garanayn maaragtay markaa macnaha laa ilaaha illa allah inuu qofka barto kelmadda tawxiidka waa kelmadda furaha islaamka u ah kelmadda uu barto shuruudeeda uu barto arkaanteeda uu barto arkaanu islaamka arkaanu iimaanka caqiidada horta inuu ku dadaalo camalkiisana maaragtay uu ka dhigo marka camal sharciga iyo diinta waafaqsan dad badan waxay sameeyaan hawadooday raacaan oo maaragtay wixii hawadooda ah oo naftooda jeceshaa bay iska sameeyaan marka inta badan waxaa naga maqan culumta maaragtay asaasiga ah in lagu dadaalo oo maaragtay diinta la qiimeeyo kitaabka qur-aanka maaragtay lagu dadaalo yar iyo weynba waalidka iyo maaragtay dadka hadda qaarkood waxaa arkaysaa qof carruurta wuxuu leeyahay English ma bartaan haddii la dhayo iskuul u farxay qur-aan inta badan waa adag tahay maaragtay in la isweydiiyo iyo maaragtay xagga diinta sidoo kale waxaa arkaysaa marka shirarka la qabanayo ama soomaalida ay meel isugu yimaadaan waa adag tahay in la isweydiiyo la dhaho warsaaka reer hebel ama dadkeena shiray imsaan soo tukan imsaas tukaday imsaan weysadu ka khaldan tahay waa adag tahay waxaa laga bilaabayaa markiiba intanoo professor baynu leenahay kanaynu leenahay waxaa laga yaabaa kaa professorka lagu tilmaamayaan in salaada baad u doono tukan marka muhiimadda waxa weeyaan diin iyo maada maaragtay in la barto oo saasaa marka xaqii ilaahayna ku lahaana lagu garanaya xaqii rasuulkana lagu garanaya xaqa muslimkana lagu garanaya laakiin qofku haddii uunu diinta aqoonin oo ku camal falin dee xuquuqdii oo dhan buu ku tumanaya maanta innaga halkaa waxayna dhigay haddaan soomaalinahay waa aqoon la-aan wey yacni dalkeena waxa burburiyey oo saa inoo galay waa aqoon la-aan aqoon la-aantii dad kamid a hadda weli dabaday sii hayaan oo maaragtay diyaar umaha inay wax bartaan marka waxaan leeyahay yar iyo weynba dadku inay waxbarashada ay ku dadaalaan inta ay nool yihiin maaragtay si ay uga tagaan maaragtay magac wanaagsan iyo
camal wanaagsan ay aakhiro maaragtay ula tagaan, waxbarashada maaragtay in xoogga la saaro, waxbarashada in horumarin lagu sameeyo, qur-aanka lagu dadaalo macnihiisa. Dad badan waxaa arkaysaa wax badsan yihin qur-aanka laakiin macnihiisi baa ku adag ama macnihiisi maba yaqaan. saa darteed wuxuu ka reebay qur-aanku iyo wuxuu farayay midna ma yaqaan, markaas uu ugu dhaqmay. waxaa maqlaysa waa xaafidul qur'aan oo maaragtay haddana waa muqayil. dee muqayil waa ama waxaa dhici karta qaarkood inuu maaragtay wax rabo iska sameeyo kuleeya qur-aankana waa xafidsan. dadka kale waxaa jirta qayb intay diintii barteen maaragtay aan ku camal falayn oo danka lahayn say rabaan ka yeeli. kuwaasna waxaan leenahay qur-aanka iyo diinta iyo xujo idinku noqonin. oo rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qur-aanka iyo diinta inay qofna xujo u noqonayaan oo isaga u doodayaan, qofna isaga xujo ku noqonayaan oo qur-aanku dacweynay. saa darteed waxaa arkaysaa in badan oo maaragtay iyaguna cilmiga yaqaana laakiin cilmiga garab baray oo ah maaragtay aan ku dhaqmaynin. gaar ahaan mar baa waxaan maqlay wadaad baa Canada intuu ka hadlay isagoo khudbad jimcaha akhriyay baa wuxuu yidhi maaragtay guurka hala fududeeyo oo maaragtay gabdhaha waalidku ha u fududeeyeen. gabadhu dhalay baa soo wacday waxay tidhi gabadhaadu nin bay u baahan tahay ma u fududeynaysaa guurkii, maaragtay anaaba u baahan oo gabadhaadii adigala guurka hala fududeeyay may fududeynaysaa. marka dadka qaarkood waxay leeyihin waxa hala sameeyo iyagiina ma samaynayo. marka qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu maaragtay uu ilaahay u ka cabsado oo dadka dariska iyo dhaqanka iyo bini'aadantinimada maaragtay inuu qiimeeyo maaragtay wixii waajib oo ilaahay saaray. xiriirka uu dadka la leeyahay uu wanaajiyo, xiriirka isaga ilaahay u dhexeeya inuu wanaajiyo, xiriirka isaga naftiisana maaragtay wanaajiyo. marka taasaan u dardaarmay cilmigana maaragtay in lagu dadaalo oo jahli iyo cilmi maaragtay wax la isbarbar dhigi karo maaha. qofkaan cilmiga iyo dhibaatadiisa u samrina dee intuu nool yahay jahli uu ku noolaanaya. marka waxaan leeyahay samir buu u baahan yahay cilmigu, waqti buu u baahan yahay, dulqaad buu u baahan yahay, maaragtay tartiib buu u baahan yahay in qof wax ku barto. laakiin soomaalida qaarkeed waxbuu bilaabaya uu ka tegaya, wax kaloo bilaabaya uu ka tegay, berri wixii oo dhan ba waxaa arkaysa isagoo tuuray. marka cilada koobaad oo haddaan soomaalina ina haysta waxa weeye waa samir yari. samir yaridaasina marka wax dhib badan bay noo keenaysaa fudaydkaas. marka soomaalidu waxay dhahaan nin maaragtay dhalinyaro ah intuu talo ka boodo, intuu geed ka boodo talo ka booda. marka bal inaan maaragtay waqtiga iyo waqtiga waayo aragnimo ku qaadano xaaladaha badan oo ina soo maray oo isbedelka dhacaya, inaynu waayo aragnimo iyo khibrad aan ka faa'iidaysan. laakiin haddii la noqdo soomaalidu waxay dhahaan oo reer baadiyaha kule ay yaqaaniin arigaan daasad ka ilbixin bay dhahay. yani ariga markasta daasada qururux baa loogu guraya, waa loo ruxaya, wuu cararaya. maalin walba ariga daasada haddii loo ruxo kama ilbaxay. marka inaynu waxyaaba badan ka ilbaxno oo waxyaaba badan ka waantowno oo maaragtay ayaa loo baahan yahay in meesha iska qaadno oo dadkeena iyo dalkaba maaragtay loo dadaalo. nin waliba waxaa ku waajiba inuu muslimka u nasteexeeyo maaragtay wuxuu u qaban karay u qabto oonu ka hagranin. inta badan dadka qaarkood waxay u dhaga nugul yihiin meelaha kale oo aan cilmiga ahayn ama xaflad la qabanayo ama waxaas waxyaabahaas hadhow qofkii haddii la dhaho maxaa kasoo faa'iiday maanta waa soo daalay buu kuleeyahay. ama waxaan kuleeyahay waxaan la yaabanahay maaragtay maanta heesta waan la dhacay buu kuleeyahay ama xafladaas ama hebel intaa uun buu ku hayaa maanta o dhan. waxaa laga yaabaa wax natiijaa kama helin, lacag buu ku bixinaya, baabuur buu raacay, khayrkii iyo wanaagiina marka la dhaho wax ku bixiya dad badan masaakiin bay noqonayaan. waa maaragtay waa xaggan miskiin bay ka yihin. marka waxaan leeyahay cilmiga in lagu dadaalo, ilaahayna maaragtay laga cabsado, ilaahayna loo toobad keeno. dad badan waalid caasinimo ay wax la baran laayihiin, kuwa badan maaragtay dunuubta ay gelayaan ba waxbarashada ka hortaagan. saa darteed cilmiguna waa nuur ba alla subxaana wa tacaala, nuurkana qof caasiya ilaahay maaragtay ma siinayo. marka taasaan maaragtay kula talinaya cilmiga barashada. waxay la tahay inay waano iyo dardaaran labadaba ugu filan tahay macalin cabdirasaaq. guud ahaan banaad daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni waxbarashada oo toddobaadkan aanu kusoo booqanay malcamada Umu Salama oo ku taala xaafada Isli ee magaalada Nairobi. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa macalin cabdirasaaq cismaan oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga malcamada Umu Salama. aad baad u mahadsan tahay macalin. khayr fara badan insha Allah khayr badan. aad baad u mahadsan tahay. shukran.